loo diray cid u digta umumka quraanka ilaahay wuxuu yiri ma jirto ummad illa waxaan u dirnay cid u digta in cid u digta horay loogu diray way dhici kartaa nabi maxamed hortii salawaatu rabbi wasallam haddaan loo digin markii nabi maxamed la soo saaray sallallahu alayhi wasallam kadib waxay ka mid yihiin ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ummatu dacwa ummadda nabiga loo xil saaray inuu diinta gaarsiiyo bay ka mid yihiin haddii cid wax gaarsiisay la helay way ku filan tahay oo intaas xujo ugu filan oo inay diideen baa keenaysa in la cadaabo ila yajuuj wa majuuj wa dadka naarta gali doona u badan oo xadiiska nabiga ku sugantay sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam in naarta ay galayaan kunkii ruuxba 999 ay galayaan hal ruuxu naarta ka badbaaday oo saxaabadu aad u naxeen oo argagaxeen oo isku naxeen ayuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yajuuj wa majuuj ba idinku hal baad ka tihiin inta kale yajuuj wa majuuj waa marka naarta dadka galay u badan yihiin طيب su'aashu waxay tahay hadii marka cid loo dirayna ma ogin nas cadaynayna ma hayno wax diidayna ma jiro haday cid u tagto wax u sheegto diidayna saasay naar ku galay hadaan looba tagin oo waxba la gaarsiinina oo ahlul fatra yihiin cid kastoon adduunka waxba la gaarsiinin oo saa ku dhinta ahlul janna ma daliilna uma hayno bal daliilku wuxuu ku tusayaa dadka saa ku dhintay in aakhira la imtixaanayo imtixaanka aakhirana ay ku kala baxayaan oo qaarna naarta galayaan qaarna ay jannada galayaan waa dadka ahlul fatra ee aan waxba gaadhin adduunka intay joogeen kitaab allana gaadhin rasuulna gaadhin marka in aakhira la imtixaani doono ahlul fatra yihiin oo marka naar u badan doonaan waa suurtagal inay wax gaadheen waa suurtagal xadiidka macnaha tilmaamaya oo dad aakhira la imtixaanaya inay jiraan waa xadiid sugan oo xadiidka waxa warinay aswad ibn sariic saxaabi la yiraahdo rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam afar ruux maalinta qiyaamada xujay la iimaanaya waa doodaya afarta waxa kamid ah nin dhagala iyo nin ahmaq oo nacasnimo iyo aqli la'aan ku dhashay iyo nin da'a uu duqobo uu cantatabay diintan soo gaadhin iyo nin dhintay isagoon waxba soo gaadhin ahlu fatra amaana saddexdaaduba way doodayaan kii dhagaha la wuxuu leeyahay rabbiyow ana waxba maqlaynin bay diintu soo gaadhay maxaa la igu haystaa ahmaqi nacaska ana wuxuu leeyahay rabbiyow islaamkii waa yimid anigoo caruurta yaryarkii saalada igu tuurahayaan banaanka ba la igu eriyana ana warafaadsanaay maxay tahay wax la ii haysto aqliba ma lahayn kii kalena waa hadlaya isagana wuxuu leeyahay kii fatrada ku dhintay rabbiyow wax rasuul ah oo xaggaaga ka yimid ima soo gaadhin marka maxaa igu haysata maxaa la igu haystaa la igu cadaabay markaasuu rabbi ballan ka qaadaya inay ateecayaan yani hadaan rasuul idin soo diri laha oo idin iimaan la soo maydaan yeeshan ha waa yeeli lahayn طيب ana ba toosada idin la hadlayo amarkayga qaata maxaan sameeynaa waxa la leeyahay naarta gala ku daata dab marka hada meeshaas markuu kala baxaya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi bi yadihi law dakhaluha kanat alayhim bardan wa salama haday gali lahaayeen qabow iyo nabadgeliye u noqon lahayd naarba ma aha waxaan suura naareed bay leedahay laakiin waa lagu imtixaanayo waa adduunkii amarkii adduunka la isku imtixaano kala waay qaar badan marka waa soo istaagaya ma naar baan gali karnaa bay leeyihiin madabhul ayaan isku daadin karnaa takliif ma la yudaq waay waxaan la gari karin baan lagu kalifay kuwa marka naar baa loo kaxaynay kuwana way ku daadanayaan oo waxay ka dhigantahay adduunka intay joogeen hadduu amar alla iyo rasuul soo gaadhi lahayn waa yeeli lahayn kuwan diidayna hadii adduunka kitaab iyo rasuul alla soo gaadhi lahaana way diidi lahayn saasa loo kala saaraya marka ahlul fatra oo dhan ahlul janna maaha waa faham khalada in la yiraahdo dadkan diintu gaadhin oo dhan jannay galayaan quraanna kuma tus sunnana kuma tusan bal sida saxda in la imtixaanayo waa imtixaankaas ay ku kala baxayaan wallahu a'lam alaabta badeecada noocay doonaa noqoto ama dhar ha noqoto ama dhul ha noqoto ama electronic ha noqoto waxay doonaa noqoto marba hadii shaygu iib u yaalo urudu tijaara la yiraahdo waa alaabta yani tijaarada ganacsi marka laga zakeynayo iyada lafaheeda zaka lagu ma bixiyo waa la qiimeeyaa qiimaha wixii ka soo baxa sicirka maalinka ay suuqa ka joogtaana lagu qiimeeyaa ninba maalin dhaw idii sheegay suuqiyadeena dadka badankood buu yiri
badeecada waxay ku qiimeeyaan sicirkii ay ku soo iibiyeen iyaga ku joogtay waana arrin khalad ah waxa lagu qiimeynayo waa qiimaha suuqa marka ay ka joogteed ku gadayso ee iibinayso ayaa lagu qiimeynaya qiimeynta wixii ka soo baxa zakada laga bixinaya zakadana waxa lagu bixinaya lacag baa lagu bixinaya ila waad qiimeysay markaad qiimeysay kadib lacag baa ku soo baxday Soomaa lacagta soo baxday qiimaha badeecada ah ayaa marka la bixinaya oo laga zakaynaya wabinaan ala hada $5,000 iyo $600 waxa ka baxaya $140 adiga waxa way haysdhibinba totalka ku soo bax 40 u qaybi xasiilada soo baxda rubuc ushur waa 40 adiga u qaybi waa wax cid walba garan karto Soomaa هذا طريقة دير فقهاء الشيغان مرتنا أو ربع العشر waxa weeyaan inaad 10 u qaybiso wixii soo baxadana 4 u sii qaybiso isla natiijada iimaanaysa inaad wax oo dhan oo isla socdo 40 ku dhufato u qaybisan isla natiijada iimaanaysa taa macnaheedu waxa weey marka $5,600 waxa ka baxaya $140 lacag ahaan baadna u bixinaysaa badeecad asal horta waxyaalaha jamaadaadka ee aan noolaha ahayn iyo noolaha aan aqliga lahayn sida xoolaha oo kale wixii ay baabi'iyaan ama ay dilaan dhiig male waxa ku tusaya xadiidka saxiixaynka ku yimid min xadiis abi hurayra nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-ajma'u jubar wal-bi'ru jubar wal-ma'dinu jubar bimaana xoolaha la dhaqda iyo xayawaanaadka aan hadlin wixii ay baabi'iyaan ama ay dilaan dhiig male وكذلك عيلك روحي عيل كدعي عيلك نينكي لها او قبسن ما ديغيس waxba laga soo qaadi maayo وكذلك معدنك وميلها laga qodo macdanta laga qodo uu ku dhacay ama way ku duntay isagoo macdantii qoday ninna wax kuma laha sidaas daraadeed takliiftu waxay fuushaa cid aqli leh haday wax sameeyso taasi waa qodob korontadan kambaniga soo galiyay haduu isagu nidaamkii khilaafo oo korontadan ilaalinteedii ka gaabiyo oo meel ay ahayd in la xidho uusan xidhin ama taaddi xadgudub xaqiisa ka yimid oo khaladku ku dhaco kambaniga waa lagu leeyahay dhiiga waa lagu leeyahay laakiin isagoo kambanigu khalad galin sidii caadiga curfiga ahayd u dadaalay korontada sideedii rasmigeed u xidhay ihtiyaadaad iyo dadaal wixii loo baahnaa isagoo sameeyay haday musiibo ilaahay ruuxan ku timaado korontadu disho marka cidna kuma laha dhiigiisu waa wax ka soo qaad male wallahu a'lam agi hore turuqda cilmiga lagu qaato oo culimada looga qaato waxay ahaan jirtay turuq dhowr ah in si toosa ruuxu sheekha u hor fadhiisto darsigana ka dhageysto in uu sheekhu ijaaza siiyo oo kutubtiisa u ijaazeeyay riwaayaadkiisa ويرادوا وقوف فصحي وحي كتبين قري iyo wixii ahadiisa warinaya cilmiga yaani si fiidi waqoof sax ijaaza leena munawala jirta waxa kamida duruqda cilmiga lagu qaadan jiray waaga hore waxeedu wijaadada waxa la yiraahdaa in aad hesho kitaab uu leeyahay nin culimo macruuf khadkiisi iyo fartiisi oo la yaqaanana ay ku qorantahay kitaabkii baad meel ka heshay cilmigii ku yaalay baad baratay ahadiistii ku taalay baad qaadatay ninkaasi sheekh ma ku yahay isagii ma arkin manaadan la kulmay la kitaabkiisa iyo khadkiisa iyo fartiisa aragtay wijaaday dhahaan waana qaabkii cilmiga loo kala qaadan jiray cilmigana lagu warin jiray bay kamid hadaba cilmigan hadda cajaladaha lagu qaadanayo ama CD-yada lagu qaadanayo ama laga qaadanayo meediyaha laga qaadanayo ma sheekhi baad arkaysaa waad maqlaysaa ama maqalka kaliya muxuu noqonayaa xukunkiisu ardaygaasi ma dhihi kara sheekhaygii way علماء بدن ومعاصرين waxay leeyihiin wijaadadii buu la xugub yahay wijaadadii macna kitaabkii meesha laga heli jiray ninku qoray khadkiisa ku qornaa oo kale kaas oo kale qaarkood ka dhigayaan qaarna waxay leeyihiin ma yatana ka xoog badan wijaadadii maxay yeelay tan waa sheekhi sawdkiisi iyo isagii oo arkaysa waa saas macna marka way ka xoog badan too waa daraja wasada bay leeyihiin simaa mubaashira
iyo waasito iyo wijaada marka waasitadaasay iyo egtahay bileeyihiin almuhim haddii xataa aad tiraahdo waa sheekhaygii si aan dadka waxooga aadan talbiis ugu ridin haddii loo baahdo waa inaad caddayso tiraahdo cajiladaan wax kaga qaatay laakiin laa maanica inaad u nisba sheegasto oo tiraahdo culimadaydu ka mid yahay wallahu aclam su-aasha labaad oo ku saabsan ninka islaantiina ku fillaan weyda mid labaadna u baahan zinana isaga baqaya iyadiina ayna guur labaad la rabin waxaan dhihi lahaa horta guurka labaad shareecadaa bannaysay waxayna ku bannaysay bisharti alcadli inuu ruuxu cadaalad samayn karo haddiiba laga helo awooddeediina uu leeyahay guurka labaad qur-aanka ayaa tilmaamay khaasatan markuu ruuxu uu zine isaga baqo sida su-aasha ku taalla markuu ruuxu zine ka baqayo guurku waajib buu ku noqonaya guurka ugu horeeyaba siduu waajib u yahay markaad awoodi karto inaad guursato haddana zine ka baqaysa labadaa marka la helo jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihin guurku markaa inuu ruuxu guursado waa laazim waa waajib bay leeyihin markaas waana kari karaa zinana waa isaga baqaya guurkii koobaad haddaad guursatay oo uu kugu fillaan waayay ood weli taagan tahay zinaan isaga baqaya kan labaadna kii horuu qaadanayaa xukunkiisa oo haddaad kari karto zinana isaga baqayso si aadan zina ugu dhicin waa inaad guursato waa xaaladda xataa shareecadu fasaxday inuu ninku guursado addoon markuu ka ilmo dhalo ilmihii uu ka dhalaya addoommo noqonayaan dalika liman khashiya alcanata minkum addoommada guursigooda ilaan markaad addoonta aad guursato addoonta ninbaa iskaloo sayid ay u tahay iyo sayid u ah soo maa addoonta markaad guursato ilmahaad ka dhasho adoo xor ah ilmuhu hooyadiibuu raacayaa addoon buu noqonayaa marka xataa ilmahaagu inay addoommo noqdaan nin kale leeyahay oo sidaa shahwadaada zine kaga ilaaliso ayaa dhaanta inaad zine ku dhacdo dalika liman khashiya alcanata minkum wa an tasbiruu khayrun lakum baa leeyahy marka ninkaa waxaan dhihi lahaa iska guurso dumar ogolaada ma jiraan hadduu ka sugayo islaantu inay u ogolaato guurso wuxuu u baahan yahay in loo sheego dumar ogolaada ma jiro raggooda u ogolaado guurso sababtuna waxa weeye waa waxa ilaahay ku abuuray oo hayrada ah sayrkaa ilaahay ku abuuray ayaa diidaya inay ragga u idmaan guurso marka ha ka sugin gabadha guursee ayadana dhaq talabaadna guurso labada reerna isla dhaq shahwadaadana ilaasho zine iyo xumaan iska ilaali wallahu aclam